soo dhawaada asxaabi qoftaana u jeedin baahiya qabatay kadib meeshii ay maqaayadka aadi lahayd taas bedelkeeda waxay imaanay dukaanka dahabka lagu gado kadib waxay bilaabeen inay dahabkii cunto midaan dahabka gadaysan intay yaabtay waxay ku dhahay maxaad samaysay alaabtan waxay joogtaa $10,000 iyadana waxay taagan tahay iga raali noqo marka waxaan sameynay maskaxdayda maysan joogin laakiin iyadu ma ka yeelayso waxay u ceesaa waardiyaasha kadib waxa imaanay ninkan odayga wuxuuna bixinaa lacagtii ay qoftaan cuntay odayga midaan isaga ka waalayo waxa ku dhahaa wax walba oo aad cunto aniga bixinayo marka waraaxaysan kartaa u dhaha meesha ku soo dhawaaw hadalkaas markii ay odayga ka maqashay waxay iska fiirinay kaamiradaha meesha ku xiran isla markiina intay soo orday waxay cunay faraantiyaashii bariis camal xitaa biyo ay isaga dejisa ma u baahno midaan shaqaalahan oo yaab dartiis waxaa ka soo dhow inay muuqaalka la egsaarto iyadoo meel dhaxmarsiisanayso ayaa dhuunta hal mar uga istaagayaan wixii ay cunaysay odaygii aan la aqoonna wuxuu bixinaa lacagtii ay cuntoo dhan kadib gurigiisa uu u soo wadanaya si looga daaweeye waxaan dhuunta uga istaagay markii la daaweeyey oo ay soo kacdana waxay arkaysaa inay joogto meel aan isbitaal u ekeen hal maray waxay maqlay qof qolka ay ku jirto dhinaciisa u soo socda kadib alaabtaanay soo qaadaneen markii ay ku dhufo istiraahdo waxay arkaysaa inuu yahay ninkii odayga ahay oo mar dhaweyta lacagta ka bixinaya isagana wuxuu ku dhahaa sidee dareemaysaa hadda iyaduna waxay weydiinaya hadda aniga halkay joogaa wuxuu ugu jawaaba aniga magacaygu waa Michael Anderson waxbaha ka walwalin waxaan ahay ninka meeshan aad joogto iskale dhaqaatiirtu waxay qabteen shaqo wanaagsan waxay badbaadiyeen noloshaada wixii aad dahab cuntana waa kuwaana waa laga soo qufay haddana waxa kaliya oo aan ka raba waxa waaye inaad dharkan soo xirato kadib aad dhinaca hoose u soo degto si aad u qoraacato iyaduna waxay la yaaban tahay ninkan odayga oo wax walba si free ah ugu qabanayo xoogaa kadib ninkan odayga waxaa loo soo diyaariyey quraacdiisa qoftiina iyadoo la yaaban guriga weynkiisa waxaa arkaya midka cunno kariyaha ahay kadib wuxuu ku dhahaa marwa soo dhawaa meeshaana soo fadhiiso si aad u qoraacato iyaduna way u mahad celinaysaa waxayna u sheegaysaa hadda inay dareemayso baahi saa'id ah saxankii horteeda yaala markii daboolka laga qaado waxay arkay inuu dahab ku jiro waxayna weydiinay waxaan maxaa waay odaygu wuxuu ugu jawaabaa saxankaas waxa ku jira waa dahab saxankaas kalena cunaa ku jirto marka midka rabto labadooda waa cuni kartaa iyadu markaan aqliga isticmaalaysaa dahabkii la siiyo ma cunayso gacmahay ku xirxirane odaygana waxay u sheegaysaa inay dahabka aad u jeceshahay hal mar intay maskaxdeeda soo laabatay waxay weydiinay waxaanoo dhan maxaa iigu samaynaysaa isaguna wuxuu ku dhahaa waxaan hadiyad le waaye waa qaada kartaa waqti allaalayo waqtiga aad rabtana waa bixi kartaa iyaduna wixii dhan oo meesha yaala intay xaabsatay waxay isku diyaarinay inay baxdo laakiin odayga intuu istaajiyo wuxuu ku dhahaa haddii aad ila joogtid maalin walba oo aad ila joogtid waxaa ku siinaa hal xabo oo faraanti ah taas bedelkeeda waxaad iska iloobaysaa saaxiibada iyo familkaaga iyaduna waxay taagan tahay hadda kadib dahabka wuxuu yahay saaxiibada iyo familkiiga 5 maalin kadib markii ay qoftaan maalin walba qaadanaysaa hal xabo oo faraanti ah ayaa hamiinada ka mid ah waxay soo gelay jikada si ay cunno u raadsato markii ay firiijka firto wax cunto ah oo dhan way ka weyneen laakiinse waxay arkay midkii cunno kariyaha oo firiijka gadaashiisa ku jiro kadib wuxuu ku dhahaa marwa la soco dhaqaaq walba oo aad samaysid aniga kula soco doona hadda kadib qaybtii koowaad waxay noo maraysay 5 maalin kadib midaanoo soo baxaysa oo jikada soo aadayso kadib firiijka ka raadsanaysa cunto ay cunto waxay arkeen marka midkii cunno kariyaha oo firiijka gadaashiisa ku jiro isagana wuxuu ku dhahaa dhaqaaq walba oo aad samaysid aniga kula socod doona hadda kadib waxay u sheegaysaa marka in aysan 5 maalin cunto fiican cunin isaguna wuxuu ku dhahaa midaan waxay ka mid tahay shuruudaha aad maalin walba dahabka ku qaadato iyadana waxay ku dhahaysaa idinka bini'aadantinimada ma fiiraysiin miya xataa hal xabo oo rooti isii waa cunaaya markay baryaha ka badiso wuxuu ku dhahaa ma ka joogtid midaan waxay ka hor istaagi doontaa dahabka aad qaadatid ugu dambeyn hadalkeeda wuu ka ogolaanaa hal xabo rooti intuu u soo bixiyo wuxuu ku dhahaa haddaba ha u sheegin Mr. Anderson midaan maalin walba qudaar iyo qajaar ay cuni jirtay maanta iyadoo rootigeeda ku raaxaysanaysay hal mar waxay maqlayaan qof jikada dhinaceeda u soo socdo midaan isla markii miis meesha yaalay hoos gelaysaa isagana wuu ka dabagalaa ileen hadhow waxaa la weydiinaya jikada maxaa ka qabanaysay odaygii Anderson ahay jikada wuxuu u soo galay kaliya in uu biyo cabo markii uu biyihiisa dhammaysto wuxuu arkaa inuu firiijka furan yahay odaygu xoogaa wuu shakinaa xoogaana ma shakinayo kadib meeshii isaga tagay hal bil markii ay ka soo wareegatay qoftii dahabka jecleed waatana qolkeeda xitaa dahab ay ku sharaxatay midkii cunno kariyaha ahay iyaduna waxay samaysanayaan xiriir maadaama inay banaanka u baxaan uusan Anderson u ogoleen wuxuu ku dhahaa waxaan ku wada laba wax oo aad jeclaa doontid mid horta waatana waa cunnadii aad jecleed xoogaa kadibna waxay weydiinayaan wax labaad oo aad ii wadid maxaa waay wuxuu ku dhahaa wax labaad waxa waaye horta aniga riyaal leeyahay riyadaasna wax kale ma ahan ee waxaan rabaa inaan adduunka ku soo wareego iyadoo ay la socoto qofteyda lacagteyda oo dhanna waxaan u keedsaday si aan kaliya tikidkan u gato qofteyda aan ku sheegayna hadeertaan horteyday fadhisaa marka hadeertaan waxaa noo ogolaataa in aan labadeena meeshaan isaga tagno midaan shaxdii dhanay uga dhiilay waxay ku dhahaysaa dahabkana maxaan ku samaynaynaa waa ogtahay aniga dahab badanaa rabaaye intuu yaabo wuxuu u sheegaa inay haysato dahab ku filan haddana loo baahan yahay inay bilowdo nolol cusub aniga ka ballan qaadaa inaad faraxsanaa doontid kaliya waxa sawirtaa adigoo free ah oo iska baashaalayo hadal dheer kadib way ka ogolaanay go'aankiisana way ku raacaysaa subaxdii dambe
iyaga oo isdiyaariyey oo bixi raba ayaa waxaa qabanaya odaygii Anderson ahay wuxuu weydiinaa hadda ma inaa baxda rabtaa iyaduna waxay ugu jawaabaysaa haa inaa baxa rabaa dahab igu filanna waa haystaa odaygan faraaciintii hore ka soo haraa u maleynaa boorso weyn intuu soo tuuro wuxuu ku dhahaa waxaanu dahab hadda kadib adiga iska leh kaliya waxa laga rabana waxa waaye inaa meeshan iska joogtid oo maalin kasta dahabkaaga iska qaadid midkii cunna kariyaha intuu soo boodo wuxuu dhahaa mudane qoftan dahab waa ka dharjisa marka hadda inay baxdo kaliya u ogolaa ugu dambeyn iyadu go'aan ay qaadanaysaa midkii cunna kariyaha waxay ku dhehaysaa iga raali noqo naag miyaa lacag laga wada karaa midkaan wax ma ogo cunna kariya muxuu sameeyahay meesha inuu isaga tagaa u soo baxday keligiisna oo safro arrintii markii ay ka soo wareegatay 40 sano ayeeyadiin waatanaa dahabkeedii iska aruursadeen idinkana weynila dardaarmee waxay idinku dhehe intii aan raadinaya dahab waxaan waaye wax walbo jecel saaxiibo iyo xuriyad ee hadda halkaas soo gaarteen muuqaalka leeg saara soo dhawaada haddii aad maqli jirteen khayr ha sameyn sharikuuma timaadee waatana iyadii oo muuqaal ah ninkan intii uu islahay naagtan uur kale oo isbitaalkan joogta lacagtan u aruuri oo caawi ayay isla asagii ku bilaabay oo lacag oo boorsada ku watay ka baxsanee markii uu u soo aruuriyay lacagtii dhanna wuu siinaa iyadana waatanaahe way u mahad celinay lacagtaana oo walba qorshay ka wadatay oo waxay ahayd lacag feeg ah markii uu ka tegay qashinka guridii sidoo kale uurkuna wuxuu ahay mid been ah waa kana isagana waa la qarxina midaan maanta mishikan inay fuliso way isku soo diyaarisa dharkii intay bedelata timihii iyada dhan waxay ku soo baxday nooc kale kadib intay soo baxday waxay u imaanay dhakhtarka qaybta qaliinka waxay ku dhehaysaa waxaa ka rabaa inay iga dhigto number 3 isaguna wuxuu u sheegaa in qaliinkeeda la diyaarinayo asbuuca soo socdo haddana ay iska sii bixisa lacagta iyada oo lacagtii soo bixi rabto ayaa albaabku waxaa ka soo galaya midkii ay lacagta ka soo xadaysa iyo gabar yar oo dhalo isaga la socoto dhakhtarku midkan wuxuu ku dhahaa adiga ballantaadii ma la gaarin waxaa ka dhiman 1 saac isaguna wuxuu dhahaa waa ogahay laakiin waxaa rabaa hadda inaa lacagta sii bixiyo si gabarteeda yartaa qaliinka loogu sameeyo boorsadiisii markii uu furana lacag dhan muku arkaayo ileen horaa looga baxsadee dhakhtarku midkan wuxuu ku dhahaa waa ka xumahay inaan arrintan ku dhaho adigoo aanan bixin lacagaha loo baahan yahay gabartaada yartaa qaliinkeeda ma bilaabi karno gabadha yar aabaheed waxay weydiinaysaa sababta uu u murugaysan yahay iyo inay wax walba caadi yihiin isaguna gabadhiisa niyadow u dhisaa wuxuu ku dhahaa waxaa jiro arrin yar arrintaas yartaana aniga xalina adiguna markii aad ogaatay in gabadha yartaa been loo sheegay muuqaalka leeg saare dhakhtarkii intuu ku soo jeesto wuxuu dhahaa haddii aad aragtid lacag waraaqad ku jirto aniga isoo wac waraaqada dhinaca kore waxaa ugu qoran Stephanie oo ah gabadheeda yartaa magaceeda saaxiibtiina waatanaahe waxay fiirinaysaa waraaqada magaca ku qoran waxayna arkay in gabadha yartaa magaceeda ku qoran yahay iyadoo waraaqadii ku sii jeedo ayaa dhakhtarka intuu soo jeediyo wuxuu ku dhahaa dayt Soomaaliya igu dhihin lacagta hadeera bixina iyadoo walwalsanay dhakhtarka waxay ku dhehaysaa waxaan u maleynaa inaan lacagta soo tirin hadeera baxa banaanka ku soo tirina dhakhtarku wuxuu la yaabay midaan waxa ku dhacay markii ay banaanka u soo baxda waxa qabana aabihii iyo gabadhiisa intay isku naxday lacagtii waxay gelinaysaa buug aysan aqoonin cidda iska leh intay soo jeesatay Stephanie aabaheed waxay weydiinay wuxuu ka rabo wuxuu ku dhahaa xoogaa ka hor Soomaalida ku jirin qolka qaliimada iyaduna waxay ugu jawaabay haa waa saxantahay wuxuu ku dhahaa qaybtaas iyo agagaarkeeda mu ku aragtay gabar iyada timaheeda waxaa ku jiray cadcadaan uurna weylheed waxaan aaminsanahay iyadu inay tahay qofkii ixaday iyaduna waatanaahe waxay u sheegaysaa inaysan qof dhan arkin oo tilmaamahaas leh waxay bilaabay inay iska dhigto qof arrintaas ka xun wayna u tacsiyeene gabadhii yareed ee Stephanie buugaagtii ayadaa iska lahayd intay soo qaadatay aabaheed waxay ku dhehaysaa na soo bixi iyada oo u malaysa inay arrinteeda u saxan tahay kuwaan macsalaamaynay isla markiina waxay ogaanaysaa inay kuwaan buugaagta iyaga iska lahaayeen ayna qaateen alaabtooda midaan wax dhan ma ka dhintaan waxay rabtaa dharkan inay qaadato ay kuwii hadda ka daba tagto inay lacagteeda ka soo ceshato qaybtii koowaad waxay noo maraysa gabadh yaradoo qaadanaysa buugga ay lacagta ku jirta iyo tan ogaanaysa inay gabadha yar buugga iska lahayd waxay arkaysaa marka dharkan meeshan suran way soo gashaneen si ay kuwii ugu daba tagto ayna lacagtii uga soo ceshato waatana marka waxay soo gelaysaa qol ay ku jiraan Stephanie iyo aabaheed waxay ku dhehaysaa waxaan rabaa inaa wada gabadhaada si aan u geeyo qolka qaliinka oo iyada qaliinka loogu sameeyo isaguna wuxuu arkaa inay midaan wadato dharka kuwa nadaafada wuxuu dhahaa goormay isku bedeleen kuwa nadaafada dhakhtarada ayaduna intay fiirisay waxay ogaanaysaa inuu sax yahay eena wadato dharka nadaafada iyaduna waxay dhehaysaa waan is-iloobay inaa ahay kuwa nadaafada qaabilsan laakiinse aniga weligay waxaan jeclahay maalin uun inaan noqdo dhakhtar gabadhii yareed ee Stephanie ayaa midaan intay soo jeedisay waxay ku dhehaysaa adiga hawlwalin waxay ku dhehaysaa buuggaana u jeedid waa buugga sawirada hoo oo ku sawir wixii aad rabtid walwalka dhan wuu kaa tegi doonaa midaan hadalkaas markii ay gabadha yar ka maqashay aad ugu farxay sababtoo ah buugga inay qaadato kaliya meesha aan u timid markii ay banaanka u soo baxdana waxay arkaysaa inay wili lacagtii buugga ku dhex jirto xoogaa kadib midaan waxay
soo gashay qolkii qaliinka loogu sameey lahay qaliinkiina waa loo sameeyey. dhakhtarku wuxuu ku dhahaa qaliinkaaga waa kuu dhameeyey, haddana waxaa looga baahan yahay inay ii hambaliyesid maadaama aan qaliinkaaga ku guulaystay. iyaduna waxay taagan tahay saa'ida u weynaysay waxaana ka dhigtay seeskii aan u baahnaay. dhakhtarku wuxuu ku dhahaa wax yaraa ii dhiman hadeer aan ku tusahay sug qalina intuu soo qaato wuxuu ka qarxinaa wixii uu sameynayay. wuxuuna u sheegaa inay lacag feeg ah siisay, sidaas darteed uu isaguna wax feeg ah u sameeyey. iyaduna dhakhtarka waxay ku dhahaysaa waa ka hubaa lacagtaas waxay ahayd mid sax ah. isla markii ay hadalkaas dhihaysana waxaa soo galaya Stephanie iyo gabartii yarteeda u dhalay. wuxuu ku dhahaa aniga waxaan ku ogaaday inaad tuuga tahay markii aad soo gashatay dharka kuwa meelaha tirtiro. iyaduna waxay taagan tahay oo markaas maxaa ii qabo weysay. wuxuu ku dhahaa gabadhayda ayaa waxay aragtay inay lacagtu meesha ku dhex jirto markii aan qolka dhex galnay. anigana keliya wax kale ma samaynin, lacagtii meesha ku jirtaa soo bixiyay waxaan kuugu bedelay mid feeg ah. midaana iyadoo xanaaqsanay kan waxay ku dhahaysaa ma waxaad sugaysa keliya intaa qaliinka soo koraayo. laakiin dhakhtarka wuxuu u sheegaa inuusan qaliin meeshaan ku haynin laakiin uu booliska ku sugaayo. haddana waxaa ka jawaabaysaa su'aalo badan oo ay ku weydii doonaan booliska. isla markiina booliskii soo galaa qoftaana waa la xiraa. muuqaalkanna intaanu ka ekaayay hadda halkaas soo gaarta leeg noo saar.